Halkan waa shabakadda warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaad nagala socon kartaan Facebooka iyo YouTube-ka. Qodobada ugu doorka roon ee maanta idiin hayno waxaa ka mid ah ciidamada isku magacaabay ciidanka nabadda Tigray ayaa diyaar u ah in uu galo magaalada Maqale. Afhayeenka ciidamada Iiraan ayaa sheegaya in Qatar ay sheegayso in aysan waxba ka ogeyn saddexdii duuliye ee Iiraan ee la waayay in aysan waxba ka ogeyn. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceynaysa tallaabada cusub ee Mareykanka uu ku xoojinayo joogistiisa militariga ah ee Japan. Qodobadan iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa ilaa dhammaadka warka inaad nala socotaan ayaanu ku rajaweynahay. Ciidanka isku magacaabay ciidamada nabadda Tigray oo hogaaminayaan hogaamiyaashii hore ee militariga ugu sarreeyay TPLF Wadi Antiro, Generaal Guush Gabre iyo Generaal Kabada Fikadu ayaa isu diyaarinaya in ay TPLF ka saaraan magaalada Maqale oo ay si buuxda ula wareegaan magaalada sida uu sheegayo taliyaha militariga ee kooxda. Talisku wuxuu intaasi ku daray in xubno badan oo ka tirsan dagaalyahanada TPLF ay isu dhiibayaan TPLF, taasoo burburin doonta qaab dhismeedka militariga kooxda, isla markaana abuuri doonta jawi wanaagsan oo lagu xakameyn karo si fudud sida lagu sheegay warbaahinta. Intaasi waxaa dheer, Generaal Tzadkan Gabratinsa wuxuu hore u sheegay in arrintan ay gali karaan bil gudaheeda, isagoo sheegay in ay aad u rajo weeyihiin maadaama ciidamada Tigray oo laga adkaaday siyaasad ahaan. Afhayeenka ciidamada Iiraan Amir Mohammad Akriman ayaa sheegay in Qatar ay sheeganayso in aysan waxba ka ogeyn saddexdii duuliye ee Iiraan u dhashay ee la waayay kadib markii ay soo rideen nidaamyada difaaca cirka ee Qatar bishii Maarso ee sanadkan. Isagoo ka hadlay barnaamij laga baahiyey telefishinka dowladda ayuu Amir Mohammad Akriman yidhi, baaritaankeennii weli uu socdaa, balse Qatar waxa ay sheeganaysaa in ay waxba ka ogeyn saddexdii duuliye sida ay ku warantay BBC. Haddaba sida ay sheegayaan warbaahinta Iiraan, 11kii Maarso 2026 labo diyaaradood oo dagaal ah oo noocoodu yahay Sukhoi 24 kana tirsan ciidanka cirka ee Iiraan ayaa weeraray saldhigga cirka ee Al Udeyd ee dalka Qatar, balse waxaa soo riday nidaamyada difaaca cirka ee Qatar xilli ay ku soo laabanayeen dhanka kacaanka Carabta Persian Gulf. Sida ay wararku sheegayaan, mayidka Major Majid Kazim oo ah duuliyihii mid ka mid ah diyaaradahaasi ayaa dhowaan dib loogu celiyey Iiraan iyadoo aan weli la helin wax xog ah oo la hubo saddexda duuliye ee kale ee Iiraan u dhashay. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaliishay tallaabada cusub ee Mareykanka uu ku xoojinayo joogistiisa militari ee Japan. Taliyaha ciidanka wadajirka ah ee Mareykanka USGS ee Japan ayaa ku daray 215 askari oo cusub tan iyo dhammaadka sanadkan si loo xoojiyo isku dabaridka ciidamada qalabka sida ee Japan. Waraysi uu la yeeshay Asahi Shimbun, taliyaha USGS Generaal Stephen Jost ayaa sheegay in jimicsigu uu diyaargarow dhibaatooyinka ka dhici kara gobolka, isagoo intaa ku daray in aysan ahayn in ay dhici doonto laakiin ay ahayd goorma. Jawaab adag oo ay bixisay wakaaladda wararka dhexe ee Kuuriya ayaa ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi in ay USGS oo u rogtay xarun militari. Barnaamijka waxaa la sheegay in loogu talagalay dagaal dhan oo ka dhaca gobolka Aasiya ee Pacific, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay tahay bartilmaameedka koowaad. Kuuriyada Waqooyi waxay sidoo kale xigatay
dhoolatuska militari oo ay dhowaan sameeyeen Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iyo sidoo kale dhoolatuska saddex geesoodka ah oo ay la sameeyeen Japan oo lagu magacdaray xorriyadda geeska, in ay yihiin sababo ku filan oo lagu sii xoojin karo barnaamijkeeda dagaalka nukliyeerka. Itoobiya waa waddan muhiim u ah isku xirka ganacsiga iyo kobaca Afrika. Madaxa shirkadda Trade Catalyst ayaa sidan yidhi: Itoobiya waa waddan muhiim ah oo door muhiim ah ka ciyaaraya kobaca dhaqaalaha gobolka iyo qaaradda, iyo howlaha ganacsiga, sida laga soo xigtay Trade Catalyst Africa oo ah mashruuc horumarineed oo ganacsi iyo kaabayaal dhaqaale oo ka socda Afrika. Faa'iidooyinka taariikhiga ah ee kuwa dadweynaha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo juqraafiyada ee Itoobiya ayaa u suurtageliyey in door muhiim ah ay ka ciyaarto dardargelinta isku xidhka dhaqaalaha ee gobolka. Waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartaa saamaynta shabakadaha tamarta iyo gaadiidka, iyo qaabaynta siyaasadda iyo jihooyinka diblomaasiyadeed ee heerka qaaradda. Wareysi Adare Adanko Naingo oo ah madaxa shirkadda Trade Catalyst Africa ayaa sharaxay in Itoobiya ay tahay waddan leh dad badan, dhaqaale badan, iyo dhalinyaro badan oo wax soo saar leh. Wuxuuna sidoo kale sheegay in fursaddan wanaagsan ay u suurtagelin doonto dalka in uu si weyn uga qayb qaato kobaca dhaqaalaha Afrika iyo in uu ballaariyo saameyntiisa. Wuxuuna xusay in qaybo badan oo dhaqaale ah iyo bulsho oo dalka ka mid ah ay leeyihiin awood weyn oo horumarineed iyo guul, gaar ahaan beeraha iyo habaynta beeraha. Waxaa sidoo kale oo uu sharaxay in ay jirto fursado weyn oo lagu kobcin karo qaybaha muhiimka ah sida caafimaadka, waxbarashada, iyo adeegyada maaliyadeed. Wuxuuna sheegay in macdanta muhiimka ah ee hadda la siinayo fiiro gaar ah heer caalami ahaan ay awood u siin doonto Itoobiya in ay aasaas adag u yeelato barwaaqada qaranka. Wuxuuna sheegay in Itoobiya ay hadda tahay waddan muhiim ah oo door muhiim ah ka ciyaarta kobaca dhaqaalaha gobolka iyo qaaradda, iyo howlaha ganacsiga. Wuxuuna tilmaamay in mashaariicda horumarinta warshadaha iyo beeraha ee socda ay sidoo kale bixin doonto jawaab ku habboon oo ku saabsan baahida cuntada iyo maalgashiga ee wadamada. Waxaa kale oo uu xusay in tani Itoobiya ay ka dhigi doonto xarun muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo maalgashiga qaaradda oo dhan.